waxaa jirta hees ka hadlaysa dumarkan yani ragga qoysaska kale taga aad iyo dadkeena carmash dhihi jireen way jirtaa heestaasi waxaan isleeyahay malaha waqti horaad qaaday laakiin xilligeedii maadaama waqtigaasi ay furniin ku yaraa hadda se la yiraahdo aad buu badan yahay malaha xilligeedii baa la joogaa wallahi heesta horta dad badan oo waxay yiraahdaan niyo heestaasi anigoo guuriyada nololba faraha ka qaado waqtiga bee heestaasi idadiila dambe iyo dhiirigelin dambeysay hadda afar habeen ka hor haye wiil baa igu lahaa war heestii beriga ma garanaysaa anoo reerkayga burburayo fad ab taagan oo maaragtay reer dambaha sameeyay bad beriga heestaa soo saartay ubad badan baa bigi jooga muddo heestaasi idadiiliyo dhiirigelin bay siisay marka anagu gabadh baanu ka hadlaynay laakiin ragga laftoodu marmar baa day maaragtay dadka bini'aadanka ee qoyska way isqabtaan way kala tagaan صح qaladku ama gabadha ka yimaad ama wiilka ka yimaad mid waliba marka xaqii gabadhan kala hay nasiibka mar kala ugu ninkuna wax ka dhigtaa adiguna nasiibka mar kala ugu isaguna xaqiisu doo isticmaalaa aad iyo aad oo jirtay heestaasi ninka la dhado Laab Saalax ayaa sameeyay eriyadeeda laxanka waxa saaray Allah naxariistay Daawud Cali Masxaf miiska waxa tumay Axmed Weli Maxamuud Ibrahim Fronle isaguna maaragtay waqtiga musician-kayga ahaa horta daqiiqadeeda horena waa lagu sheekay marka raadeen wax dhacday aniga iyo nin la dhaha Khadar Cakulle iyo ninka la dhaho Xasan Sulaymaan dhaqul Laab Saalax iyo aan wada soconaa marka Daawud Cali Masxaf waqtiga Hargeysa isaguna hawlo shaqo u joogay oo ku cusbaaban gurigiisa booqanay sidii quruxda badneed uga ma sheekeen karo waa laga yaabaa maalmaha way cusbeed markaan day ka sheekeynayo wax deen ugu sawiran bay ahayd marka aniga iyo Laab Saalax iyo ninka Khadar baa wada soconay gaari baan u saarayn gabadh baa marka ay Laab Saalax isgaranayaan way wada hadleen way soo istaagtay Xasan iyo Raqiiq markaasuu wuxuu yiri baan filayaa qoyskii iga waran reerkii may ereygu ku raan malnaya yani gabadh quruux badan oo sidan u sano dadnimo Ilaahay dhan waxba tahay haye markaas ay tiriniyo hadaan inta soo dhan leeyahay maanta wad tan oo kale kuma jirin oo taad ku jirtaa waxay tahay waa la furay haye dabadeedna ku naxay wallahi adu gabadhii sidii baan kaga tagnay Laab Saalax jidka intaan ku sii jirnay show heestan u diyaarinay haye Daawud baan u tagnay haye Daawud buu ku yiri sidaas gabadhii maanta ma garanaysaa halkiina sida ay tiraa gabadhana qaano wanaagsan bay gabadhsana bay hawsheedii baan heeska sameeyay oo maxaa tani dasa ereyadii buu sheegay markaasuu Daawud meesha fadhiyay yiri musa weligeed heestan oo kale lama qaad haye marka waan la xamiinayaa anigoo meesha fadhiyana waxa anigu waan dii qaaday dhaaf maysa aniga mar hadii Daawud dan macallin ahaaba ku dhigay oo laxankeedii yiri qiso qurux badan tahay Daawudna laxmista aad weyn buu hayay lajana waa bari ahaa Allah naxariisto markuu deeso xaqiis kaga dhigay baan xaqiis kaga dhigay nin waliba dhankiisa qabsaday noqotay heesta markaa saasaan ku sameeynay wallahi hees saameynteeda la bay noqotay oo maaragtay fanku waxa weeye fanku waa wuxuu ka hadlaa bulshadu ka hadlaa wax wanaagsan buu sheegaa wixii bulshada ka qaldan buu tilmaamaa adu waa dareenka bulshadu ka falceliyaa aad iyo marka waqtiga wixii taagnaayo inta heesna laga sameeyay bay hees laga sameeyay bulshadana wacyi gelin oo wax tar u leh ilaa imkana bulshada dad badan baa aad u isticmaala waa ka heestaas aasaan ku soo ereyada ka war wuxuu yiri ciidiyo dhulkeeniyo wali carada kumaan arag ciidan dumarba kula siimo hayeeshee cudoonay cibaarada adduunkiyo casharada ifka badan almashada midku dooxo calanka ku suray hadduu calafku ka diray aashaq lagu hungubiyo nin xuni ciilku ku baday ciilku ku baday ragbaha uga caagin heestu mar hore ahayd xasuusanay marka wuxuu leeyahay ninkii hore hadduu xumaa ragga kala hanicine nasiibka mar kale way qaad buu leeyahay inaad tahay wali maaragtay oo nasiibkun baad ka qaldamay inaad wali inaan tahay
inaan shaqada weli oo haddana de nolosha xulan karta nolosha xulan karta qofkii la wadaagay runtiina waa say tahayo waxa la yiraahdaa nolosha la iskuma dhiibo waay gacmaha lama taagto hadda wax ka xumaadaan baribi hagaagis xumaadaan please try again bay waa ka cesho war labaad isku dayaa aad iyo aad